Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelka Saleeka oo aad ugu barateen mar walba in uu soo gudbiyo imtixaanaadka dowladda, imtixaanaadka fasalka sideedaad iyo form 4 iyo garaamada Englishka iyo sidoo kale habka sheekaysiga lagu soo gudbiyo. Waxaa soo gudbiyo mar walba anigoo Maxamed Said Cumar. Maanta waxaan sharaxayaa simple present tense. Hore waxaan ugu soo baxay present B iyo present continuous tense. Haddana waxaan sharaxayaa tense labaad marka. Simple present tense kala markaasi waa tense labaad. Soo naqaan mar walba waxaan ka wax macno la sameeyaa. Waxaa la maqaa idayada is used for waxaa loo isticmaalaa an action ficil which kaasoo happiness dhaca every day maalin walba, which kaasoo happiness kaasoo dhaca every day maalin walba or ama daily ama maalin kasta maalinle. Marka tense kan wuxuu leeyahay laba rule. Waxaan kala qaaday laba qaybood oo kala qaadayna rule of plural iyo rule of singular. Wuxuu leeyahay markaas laba qaacido leh tense kaliya leh laba qaacido waay. Marka rule of plural waxaa kamid ah marka subject plus verb plus object. Marka sida caadiga ah waxaa laga doonaa marka object-ga in soo qaadko subject-yada ama pronoun magacyada afartan waxa loo isticmaalaa marka you iyo I iyo we iyo they waxay qaataan waa do. Marka meesha waxaa ka maqan she he ida ka maqan kuwaas waa rule labaad taasoo loo yaqaano rule of singular waa kili waa. Marka midkan waxaa laga doonaa marka pronoun ama subject in mid ka soo qaadatid laba inaad keensid marka waxaa keena verbka saddex waxaa keena markaas object ah ama gadalgalihi. Marka tusaale you ama ka darab inaad dhahdo kale adiga waad taqaanaa waxa dheena you adiga now garashaa me waa aniga marka you know me adiga waad taqaanaa si fiican idin garanaysaa. Hala markaasi I aniga make waxaan sameeyaa with a chat waa shaqeys ayaan sameeyaa qof saas oo ku dhaaday. Haddana waxaa dhahday markaasi we anagu write waxaynu qornaa we anagu write anagu waxaynu qornaa a lesson 10. They iyagu build waxay dhisaan houses guriyo. They iyaga build waxay dhisaan houses waxaa guriyo. Marka tense kuwaad markuu yahay waxaa lagu daraa marka hadalku waxa waa hadal hadda muujinaya kan kuwaad. Tusaale you know me waad taqaanaa marka tense kuwaad raacsiina marka non continuous verbs uu kamid yahay kan inkastoo kamid yahay marka you know me now Allah adiga waad garanaysaa marka hadda markaasi laakiin hadda ay tense kuwaad markuu yahay noqon you know me waad taqaanaa. Marka I make with a chat anigu waxaan sameeyaa wada sheekaysi waa tense labaad. Laakiin kuwaad marka ka dhigan kale anigu waxaan sameynayaa wada sheekaysi noqon kaas meesha maanis I am making you with a chat aan qeynaa marka. Okay ina fahantaan fila marka waxaan galana qaybaha marka sida loo dhigaa su'aal ama affirmative wish ama affirmative soo taqaanid interrogative ama tan kuwaad waxa loo yaqaanaa affirmative waxa loo yaqaanaa ama statement la dhihi karaa. Interrogative waxaa waxa la dhihi karaa question la mid ah native and native question marka midaan dhisno marka tusaale hal soo qaato marka I take waxaan qaadaa maayorin kaadida in the hospital isbitaalka ayaan waxaan u qaadaa kaadida marka mar walba qofkani ee muujina hadalka anigu waxaan qaadaa kaadida ayaan qaadaa isbitaalka marka hadalku waxa ka muuqanaya marka qofkan mar walba ama waxay xaalad la soo gudbanaata infection waxa soo jiraan kan uu qaado isbitaalka uu geek hada marka waxa laga qaado affirmative waa hadal iska caadi ah ama waxa dhici karta affirmative waxa la mid ah statement la mid ah. Marka su'aalkan ka dhigayno do I take aniga miyaan qaadaa maayorin kaadida in the hospital isbitaalka waxayna qadamkaas interrogative ama question soo taqaan waa su'aal ilaa uu jawaab laga sugo hal aniga miyaan u qaadaa kaadida isbitaalka ha mismay laga sugaa. Negative marka diidmo waa marka I aniga do not take ma qaado maayorin kaadida in the hospital isbitaalka waa negative waa. Marka ka dhigay next question oo kale don't I take maayorin aniga ma qaadnaa kaadida in the hospital isbitaalka waxa laga qaado negative question Allah marka